soo gudbino intaynaan u gudagelin barnaamijyadaas aan hayno bal marka hore ku soo dhawaada dadyooga faraha badan ee adduunka dacaladiisa jooga ee markasta fikradaha iyo balse u qabaan kaftanka siyaasadda iyo waxay ka aaminsan yihiin ayaa iyagu noo soo gudbiya bal nala soo ku soo dhawaada oo nala daawada. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقو عبد الرحمن عبد الله الحسين وحن كنا لي دلك جرمالك وحن هل كانوا قلت هنيدين يا همبليانا وقدر يا إن برنامجك كفتك السياسة أي برنامجك أصاد دياري علي حراري سيدو كله ودادهين جري عنك وقوها ياسين دعالي سيدو كله بدري أو كله ما أنت واني سلامية وحبا دتكي نوقبتين واد صعوتان وضفي عمبك صعوتان واحد صعوتان وضضي هاي جيسيغا دول كيسا وشو هرسيدا كيريدا ديشاي جيتكا هبوء كوغبرارتادا كوميسيغو هركعو واد شقينيسان ددكينا u shaqeynaysan dadkiina u tilmaamtaan mindiyaha qarsoon ama seefaha qarsoon ama godadka loo qodayo ee loo maleegayo iyo shacabkiina u ifsaan haniya jabina kulli qaar xunaan xusiin way la soo hadlayaan laakiinse waxa loo ma joojiyo waxa kale oo aan idinka codsanaya muuqaalkii bishii hore aad duubtay waa inaad bisha dambe sida uga bedel lahaydeen farankeeda aad qabataan toddobaadkii hore muuqaalka duubteen toddobaadka dambe sida uga bedel lahaydeen muuqaalka muuqaal ka casrisan aad u keen lahaydeen waa inaad samaysaan idhigtarada waa inaad sii xoojisaan shaqeeya oo shaqeynaysaan lama moodayo dadka qaar kood in maangaab kuma moodayeena dadkiina wuxuu qabanaysaan laakiin xaqiiqan ugu xanaamisanayna dadkiina wuxuu ifinaysaan waan idin taageersanahay waxaan idin leeyahay wax badan baa soo bandhigtaan ku fanaan iska dhigayo oo fanka kooma gelinaya in hanoqonina oo dhaafa oo ka badiya in idaacadaha Soomaalida TV-yada Soomaalida 1999 ka taagnaayeen ilaa hadda taagan waa inaad dhaaftaan saasan lagu taageeraya waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahmaa xarabiya waxa jira xaraka allaha xarakada badan baraka badan baa ku jirta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan islaamaya yaasiin ducaale بدري يعلي حرارو برنامج صوت ديارية لما أنت وحن والسلام عليكم ورحمة الله. waayahay halkaas waa u jeedaan idinkana waxaa laydinka baahan yahay qof kasta meeshuu joogo fakarkiisa waa muhiim waana loo baahan yahay inaad nala wadaagtaan kaftanka siyaasadda oo weliba nagala qayb qaadataan oo nala socodsiisaan waxyaalaha ka dhaca nin waliba meesha uu joogo. haddaba bal cali xaraare aan weydiiyo bal wuxuu maanta inoo hayo cali bal soo dhawaadis. aad iyo aad baa mahadsantahay yaasiin sax qodobo fara badan ayaan halkan ugu hayaa waa koo inkastoo mikrofoonadeenna maanta nin qabowga dhexmaad inta ya qaar baa shaqeyn waayey haye waaye bismillah aan ku bilowno socdaalkii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wuxuu soo galay socdaal dheer oo uu ku gaala bixinayay gobollo fara badan oo Soomaaliya kamid ah maamul goboleedyada Puntland oo meelo badan tagay baan eegi doonaa galmudug oo uu iyana booqday waxaan tagi doonaa dabeetana haddii Ilaahay ku runay meelaha kale ee uu booqdo waaye runtii إلى حد سأد أبى حدوين أي لو سودوي مقالة جروي مركو كسودي دتك نبى إسوس بحي وحيو أكيد حل جل الدورني فرماتش دتك أي أريق صناعي حل اللمدة وهو هذا البيتلان كذا شيء وجدد وين وتروح واحد فريتانكا إيربورتكا الله عمر عبد الرحيم جنرال محمد أبشر أدينا يكون هاي furitaankaas ayuu dabeetana soo dhaweyntii deegaanada markuu arkay ayuu jeclaystay in degmooyin kale uu ku sii darsado oo isla Puntland haye aan ka bilowno airportkaas haye dadkii hadlay waxa kamid ahaa madaxweynaha hore ee maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Faroole haye waxa kaloo hadlay madaxweynaha haatan Puntland عبد الله محمد القاس إيه وياه لما بيهوستد اسكو هراتي إيه اسكو بسمعوا ترى إيه يغنها ورتا يوضا مدش مدل وين أهيد ودود الفدرال كل شوكتو
ayaa waxa ka muuqday in ay isdurayeen oo ay isjuqajuqaynayeen oo dagaal weyn uu ka dhaxeeyay Faroole iyo Cabdulrahmaan Algaas labadoodaba laba madaxweyne midna kii ka horeeyay midna kii ka dambeeyay xilligii doorashada oo kale markay ololaha ku jireen ayaa la mooday laakiin labadooda markaan eegay xilligan wax aqli badnaa oo maskaxdiisa ka shaqeysay Cabdulrahmaan Algaas والله وعجايبي هي Faroole aad buu dagaalamay دغال وين dagaalkana wuxuu horta sheegay airportkan Garowe ee la sameeyay iyo mashaariic kale oo laga sameeyay Puntland oo airportka Boosaaso ku jira iyo dekada wuxuu dhan inuu soo sameeyay Cabdulina aanu magacaas iyo creditka aanu qaadanayn isagu xaq u leeyahay bal marka hore intana wax kale eegin aanu eegno isagoo umana sheeganaya reer Puntland oo airportka aniga adeer sameeyay iska leh Faroole isaga saxiixay oo yiri go ahead tii kan uu hargeyso ka dhamaan lahay hadda maanta halkan waxa soo gaarsiiyay waa dibu dhacay wax ka saacid magaca sheegato anigu magac ma raadinayo ilaa maalintii aan joogo mashruuca soo helay wixii kama kharash aan ururinay aan dadka ka ururinay ilaa hadda waan ugu ilaalinayo oo aan dul joogo waxa ka dhiman aan ka warayo cidoodu ma jiro si aan ugu eego sidaas ay tahay wax magaca aan ka doonayo ma jirto ana jirahay wixii ka duula ama laga qaadayo oo jiran ama isticmaalaha bal ajir ku eego waxaan idin sheegayaa innamaa nudcimukum liwajhi illaah laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shakuuran weeye aniga waxaan qabtay halkaasay ku fadhida هي meel baa dhigay waaye waxaan ku xijinayaa markii uu dhageystay hadalka Cabdulrahmaan Algaas ayuu isna wuxuu u hadlay sidii hadal ah Faroole hadalkiisii ka daba tagi maayo shir looma wada uunsiyo madashana madashii aan aniga Faroole ku garnaqsanaynay maaha hadal sidaa u eg oo qurux badan oo ah arrinkan halkan laguma furayo meel kale ayaan kaga hadli doonaa ay soo jeediyay runtii hadalka aad baan uga helay waa kan isna Cabdulli warkii hadda halkan madaxweynihii hore uu ka yiri أنا عندنا كجواب مرة وصلت وماشي ذي معه مرة شيء ذينا معه. سؤال صوحة ترى أنا بالي أنا نكى صول السيد هذا نكى دورة عشاء. مركا يوم يا خير أيام يوم تاني يا دمانتي. والله هو واي وما هذا بدو باطل. لابد إن الإيربورت أفري رير بوتلان إن يجي أنا سمي أنا أضيع عليه لا يسوق بصدق ما حكيني وحكيني ما عميش اللي بحني إيربورت وحلا يسوق استوى مقع تقال هو مقع هرت مركب مقع أسد ما بايو عبدولي إيو كوحي سو حصاد دياريان جنرال محمد أبشر إن لقوا مقعبه إيربورت إلهي جنير حماسي آمين لكن سي فرع له حربي إن لو بحي إيربورت عبد الرحمن Faroole ايربورت والله هو عجايبي إلا هو مقعدره dadka loogu magac daray dhibaatada Faroole haysta xooyay Puntland oo dhan wuxuu yaqaan Garowe marka reerkiisu musaab eegay reerkii badan magaalada jooga meesha maana iska leeyahay Puntland oo dhan iska leeyahay ayuu leeyahay marka wuxuu ku aaminsan yahay Cabdulli inuu yahay nin martiyo galkacay ka yimid ajnabi عبدولي قاسي وابرتي بارسي هي مركب Faroole من ضد مدين كريه وما أكا بوتلاند لو ذليه وما أكا هي هدي قول بوتلاني أي وحابته وتراو أرن كاسم كعوانا Faroole كسو هذا لي مقدشة هي أو قول ذا هدي ماشى أسودوات بوتلان وبابايس هلا يلالي يا لبن مدحويني أو إسكو هوسنول أو إسشقاقيني أي قطع هي وحوي Faroole waxa ku fiicnay inuu sidii oday u hadlo oo uu yiraahdo airport ka wanaagsan ee noo yimi inagoo dhan ayuu inanfacaya inagoo dhan ba ka wada qayb qaadanay madaxweynihii ku horeeyay misalan Cabdullaahi maya ninkii ka dambeeyay cadde muuse ayaa xoogaa bilaabay Faroole xoogaa ku sii xijiyay
waxaas وقريش وقريش ديب waxa dhameystiraya عبدولي واساس marka saddexda madaxweyneba way yeelanayaan credit sidoo kale dekadii wixii waa la mid laakiin ninna ma oran karo farmaajo magaalada qardho la yiraahdo faras iyo gooshaala ayaa la siiyey ما شاء الله wuxuu qaabilay boqorada iyo ugaasyada gobolka wuu ka tegey dabeetana jidka ayuu dheer ayuu baabuur ku maray wuxuu tegey meel la yidhaha carmo oo laamida ku taala ama laamida dhex marto aad baa lagu soo dhaweeyey halkaasuu barqaystay xoolaa la qalay haddii la kuri wuu ka khudbadeeyey qardhana wuu ka soo khudbadeeyey dabeetana waxaa jidka sii taagnaa iyagana meesha la yidhaahdo ceel daahir reer maakhir oo jid ilaa ceergaabo u socdaa uu uga bilaabma halkaa dabeete madaxweynaha waa lala soo xidhiidhay in halkaa iyana lagu hilbo cuno ari lagu qalo si fiican laysu salaamo warbixinta jidkan loo sheego iyo wuxuu uga baahan yahay dabeeto madaxweynaha markii hore aqbalay arrinkaa ayaa haddana telefoonkii labaad ku sheegay reer maakhir inaanu halkaa kula qadayn karayn iyagoo suldaankiina uu hogaaminayo tolo sababtaa maxay ya dabeeto aad bay uga xumaadeen reer maakhir madaxweynihii oo maalintaa la qadayn waayey marka halkaa ceeldaahir la yidhaha farmaajo iyo wafdigiisu gaadhigu breegun buu ku yara qabtay in yar gaadhigu kasoo degay waa isa salaameen kama khudbadayn kamana hadlin intaasaa iyagana kala gaadhay ma khudbadayn dabeetana dadkii meesha yimi dareen baa galay dareenkaasi waxa weeye xilligii dowladda maxamed siyaad barre iyo reer maakhir iskuma fiicnayn dabeetana maxamed siyaad barre oo xilligii dowladda ay dhacday isagoo buur dhuuba jooga ayaa la weydiiyey waa la iska sheekaysan jiray marka waa lala kaftama waxa la yidhi miyuu reer maakhir iyo adiga dhowr 20 sannadood meesha haysata isku meedana fiicnayna maxaa khaldanaa marka odagu xilligaa waa oday Soomaaliyeed wuxuu yidhi waa laygu diray reerka waa laygu diray farmaajo imika lafteedana عبدولي بقرب سعودي يلي إن ضعف قرضا قرضنا بس مري قرضنا حقنا وكتر سين حقنا وكتر سين يجي بريق وكوي رقم مركز دردي أيا ولي صوت فرماتنا وكنا حريم محمد سياد برا أيا ولي نكتب حلو شيء قرضا واسنافن إن كستو جدد وديت لسيسي هي فرماتو أي بوساسو سكوار كان بوساسو قد بتكين بوساسو قد بتكين oo ay halka ku qaabileen dhowr qof dabeetana boosaasu tagay runtii aad baa lagu soo dhaweeyay sawirada dhammaantood hal mar baynu isku daba xidhaynaa sidii loo soo dhaweeyay oo gobol walba qaarkood waxaa la siiyey qolaa waxay keentay hal hidiya dhaqankii ka buuxo oo ay u bixiyeen maandeeq waa ugaaska dishiisha عشمات في عم بوسمي ميل بير نكا iyo reerkiisu oo aan Puntland ka dhex muuqan jirin doorkan waxa isu muujiyeen inay yihiin dad jira oo aan la ignore gareyn karin reerku aad buu soo baxeen maalmihii hore ayaan eegayo reerkaasi siyaasadda kama dhex muuqdaan hal nin baa laga magacaabaa la Saciid Maxamed Raage markasta soo noqda oo dawlad kasta loo soo shaqeeyo Cabdullaahi Yuusuf waa isagii عبد موسى وسعيد هذول كورتي كلا فرول وسعيدكي عبدول وسعيدكي وغيركم يعني نكرة بالهين سني كنا دمر بمشي صاد ما أقدر نكرة هذا أي ما مركو هرلي المغرب وباش وبالسكا
degan oo aan siyaasadda ku lugahay maalmihii heesaha aynu beel walba aynu u qaadaynana waxaan soo sameeyay hees la yiraahdo ila dadka kala siyaasadda ka hadlayeen hees ay ku jirto badda doon baa marayso دومبا مريض وتشاوي يحبس يدبر marka xagga badun bay eegtay badda dhinaca badda ku faafsanay doorkan sida badda weegeen ay xagga muqdisho lageeyeen marka aad bay ugu soo dhaweeyeen aan ka gudubnay gaalka ay tagay madaxweynaha gaalka ayo iyana waxa lagu soo dhaweeyay gacmo furan iyo si qurux badan waliba helicoptero ayaa dulmariyay macabsi bay talam dabaaldeg wuxuu tagi doonaa saacadahan soo socda barnaamijka intaan duubnay ka hor cadaado iyo galmudug iyana kulli waxaan filayaa sidaas leeg ayaa lagu soo dhaweynay farmaajo waxa uu dhalatay dawlad kale hadana iyo yididila kale soo meeshan xabar ama muqdisho stress iyo buuq waa ku hayay laakiin halkan aad buu ugu nafisay marka bal sawirradii oo dhan aynu isku daba xidhno علي ودد فربدن وي والله والله يا xilliga la dooranay kala weeyay sama farmaajo waa yaabay waaya aan runtii waxa dagaal ka dhacay meel ay tukaraq oo Soomaaliland ciidamo ka tirsan iyo Puntland ay iska hormaadeen dad badan baa isweydiin xilliga Soomaaliland iyo Puntland oo labaduba nabad aha maxaa dhacay qaar badan baa leh dawladda cusub ee weerarka waxa soo qaaday Soomaaliland marka waxa la isleeyahay Colonel هو مصبح مياه دربة بلعبة هاوشن iyadoo dawladda ka horeysay nabad meesha laga dhaxarkay waxaan eegi doonaa tuunka dadka khasaarihii ka dhacay sababta meesha loo weeraray iyo waxa ka dambeeya waayahay tukaraq horta ciidamada weeraray waxa weeye waa dadkii deegaanka wasleeyigi Soomaaliland wala sii kala yahay warrigi deegaanka waxa hogaaminay baasha ambaashi waa deegaankii marka shaarka Soomaaliland hasito laakiin cidda weerarka qaaday ee meesha qabsatay wareerkii wareer sool cidda ay ka qabsadeen wareer sool iyagu ma kala qabsanaa marka dadka u haysta in dagaal iyo dhiig iyo bilaay ku daadatay ma aha telefoon inta la soo diray ay bay waan soo soconay ka baxa meesha cidba kuma dhiman wax dhacay jabaraha noo sheegay cidda ku dhimatay cidda ku dhaawantay gaari laga ma qabsan marka haddii ay aragtid dagaal laba ciidan iska hor yimaadeen ay iska hor yimaadeen way isdileen waana cidda ku dhacmin dagaalkaas uu siyaasadaysan yahay marka waxa ka jira aaga waa la isu baneeyaa cali khaliif galeer imsa la yareynay maxaa loo qaban waayay inta telefoon loo soo diro ayaa la oran jiray ka bax markaasaa isagoo ka sii maqan 5 minutes ayaa la oran jiray meesha waan qabsanay cali wala raadinaya marka cali raadinay ma ahayna cali wuxuu ahaa la badbaadinayay oo aan la doonin la qabto waa ka sii bax ilaa finally ninkii sida uu carariyay uu isgeeyay hadana hargeysa marka siyaasaddu waa siyaasad wax anagu dhinacan ma raacsan laakiin sida xidhan ma sheegin tukaraq way qabsadeen nimanka reer sool dabeetana hanjabaado iyo colaad ayaa soo baxday intaan hanjabaada gelin dagaalkan muxuu ku salaysan yahay xuduudo la soo xidhayo Soomaaliland ay doonayso inay qabsataba mise wuxuu iska ahaa mid wax kale ku salaysan reasonku wuxuu ahaa on oran karay anigu dowlatus siyaasadeed farmaajo ma yihiin meesha hawshaas farmaajo bay ku xidhnayd haddii Soomaaliland ay soo xidhayso xuduudkeeda dagaalkan ka hor buu dhici lahaa ama farmaajo kadib
ودعلا لكن وحا لتوسيا فرماتشا ليه في سومالان بنا لا يرادا برشو راكس الى قروي ايام دون ايام سي سocnayna فرماتشي ماشيhiisa خلخل siyaasadeed oo iyo dagaal uu ku cin karay ma jiro marka runta dalka la difaaco oo la dagaalamo horta marka ugu horeysa dagaalka wax lagu baaqo dagaal maaha oo anoo dad Soomaaliyeed oo walaalo ah laakiin xaqiiqda dhabta waxa weeye dhinacan Soomaaliland reer Soolum baa ku dhimanaya Abdul Ciid uu leeyahay dagaalamana waa reer Sool kale iyana way ku dhimanayaan marka reer Sool meel dhexe ay horta ku baabaayaan labadaasina waa Soomaali Somaliland iyo Puntland waa meelaha Soomaaliya ugu nabadda fiican leh horta runtii waa ayaan daro in iyadoo aanay jirin sabab weyn oo dhiig loo daadiyo oo xabad loo rido oo ma garanaysaa waxa loo sameeyay cabsi gelin dadka la yiraahdo in xilligan la bilaabo waa ayaan daro waxa ay labada shacab laba isu gudba oo wax kala iibsada oo aadiyaabisid oo quruxda ka muuqato meesha iyo walaalnimada laakiin tii wax mooda in siyaasad dad gaari in ay qoreenayaan wasaase dawladda markii la arkay dalabta aynu eegno Abdul Maxamed Gaas oo baaqiisa dhinaca dagaalka haddaba waxaan shacabka reer Puntland gudaha iyo dibadda ku wargelinayaa inay u diyaar garoobaan difaaca dalkooda isla markaana ay garab istaagaan ciidamada difaaca Puntland si loo xaqiijiyo midnimada iyo wadajirka Puntland shacab ahaan iyo dhul ahaanba ugu dambeyntii waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliya daneeyayaasha xasiloonida Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in maamulka Hargeysa uu mas'uul ka noqon doono awaabxumada ka iman doonta duulaanka qaawan ay ku soo qaadeen deegaanka Puntland wabillahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياك وايه. إله بدوالي هي. دمية برلمانك. باشي. أيها يسوون كهذلي. سوتشوا هي. هنشبات كله. أيها اسمه قصدر سومالن. هي. ولسنا باشن عنده يسمى. كان يوم كتريان وحوي دقاق على السوق عليه. وحنا شيء من شعب سومالن. لوكاس إنه يهدل سومالن. haddii ay sii socoto in loo diyaar garoobo sidii loo difaaci lahaa dalka waxaan kaloo hambalyeynaa ciidanka Somaliland oo waajibaadkiisa gutay oo dhulkii weli xuduudii wax badan u hareen laakiin maalinba meel kusii turkaya marka intaasaanu maadaama wax isdhaceen waxaanu garanay golayaasha in laga جبهة كسوق مش يا هي لبضوا بعض بقى dadka waalaya dadka yalla waal laba madax badridi maayo laakiin waxay doonayaan in ummadda la isku baabaado reer Somaliland reer Puntland waxaan u baaqaynaa in dagaal aanu xal ahayn wax imka labadaas isku hayaan oo miiska yaalana ma jirto sidaas daraadeed nin kasta oo ku nool oo shacabka reer Somaliland reer Puntland waa inuu eegaa aqligiisu ka shaqaysiiya if iyo aakhiratoona dagaal xalma wasaas waaye haye gaas iyo baashi labadooda reer labadooda beelood ay ka soo jiraan ayaa hawdka isku leenayay barihan oo dhan hawdka labada reer ka soo jeedaan labada reer ka soo jeedaan labadooda midna intuu tagay war kala jooga ma oran wareeraha kala beddelay marka dagaalka reerahooda baasho iyo u dhaxeeya gaas iyo la soo aadin Somaliland iyo Puntland yaanu ku wareerin waxaan eegnaa farole oo isna soo dhaxgalay farole هذا الكيس بل مركه هره اسمع عين كحجن هذا oo xanafta leh way ku hadleen Abdi Weli iyo baasho ka dameeyay Abdi Weli ma oran karo argixisa la dirirayo Soomaaliland ba taageero siinaysa waxay noo soo weeraray argixisa la dirin naga jeeday Abdi Weli Abdi hore lama dirin haddana lama dirirayo dibna uma diriri doono waxa example inuu ku filan bishii March 2016 markii Garaacad iyo godob jiraan iyo ayl ciidan kun ku dhow ay oo aad u hubaysan ay soo weerareen oo America uu joogay holiday buu sii galay wuxuuna joogay meesha la yiraahdo Virginia ayuu joogay waa la hadlo
inuu yimaado ma imaan dagaalkii markii dadkii shacabka ahaa iyo ciidamadii halkan joogay wixii la ururin karay la urushay oo la galay oo laga guulaystay cadowgii maxaabiistii la qabtay buu garacdi intuu diyaarad soo jaarta garaystay Addis Ababa ku yimi isku sawir marka waaba nin isku noole nin loo hadalkiisa loo qaadan karo rasmi maaha waan ka xum farwada muddo wasleedahay buu leeyahay waa ummadda yaan la wareerin farwada dhowr qodob meesha ka eega weli dagaalkii isagii ka dhaxeeyay Cabdiweli Maxamed Gaas waa sii socdaa ayaa ka muuqda meesha wuxuu ku xumaynayaa Cabdiweli Gaaska ay hal dagaalamo ama dagaal ku baaqay wuxuu u arab laalaadinaya ama uu hadii ay ku reeyahay aad u dhowraya dhinaca Soomaaliland isaga waxaan ku tilmaami karayaa nin la xintamaya Cabdiweli Maxamed Ali Gaas isla markaasna dhinacan Soomaaliland xagga xididnimada ayuu xeerinaya ninkuna inuu xidid xeeriyo iyada waaba fiican yahay isagoo madaxweynaha markuu degan waa kii Hargeysa tagay waa kii tagay business iyo hawlo kale ka dhaxaysa waa soo dhaweeyay odayaashii shalay soo dhaweeyay inuu xoogaa farta ku fiiqo ayuu diiday Hargeysana wuu ku noqonayaa berito marka farole hadalkiisu hadal nabadeed iyo hadal odaynimo maaha waa labada qodob ee midna uu gaas ku xumaynayo midna xididkii uu ku xeerinayo marka isaguna halkaas uu maraya markii waxa la eegay ayaa Yaasiin waxa la ogaaday dadka Soomaalida la yiraahdo inaanay heshiinba karinba cid ka xoog badanna aanay jirin haddii kale xoog badan marra ayaa la heshiin lahaa marka waxay jecel yihiin nin gaala in loo diro haday jir ama nin Ethiopia ka tirsan in loo diro la yiraahdo adaa Ethiopia u tag waxa loo diray ninka Kiitin la yiraahdo oo isaguna ma Kiitin wax weyn ergeyga qaramada midowga Soomaaliland buu tago wuxuu yiri mid hawsha caadi hal iska dhigo xaalad farmaajna dhulkan Soomaaliland mana soo marayo umana socdo digdigtiisa iyo damashaadkiisa iska ignore garay waxana joojiya وحبد له الرضا جال مدحوينه ما حل 91 dadka yaan dib loogu celin okay bay dhahay arinta wuxuu sheegay inay ka yeelaan haddii 20 Soomaali odayaal loo dir lahaa abadan dhinacan kale Puntland haddii 20 odayaal loo dir lahaa abadan nin cad ama nin amxaari ama tigray ku hadlaya ay bay ogolin Soomaalida iyaguna waxay isaga soo farbaxsanayaan maxaa ka galay arrinkaasina halka ayuu maraya waxaan dhamaantood u rajaynaynaa in ay nabad ay ku waaraan oo ay cabsida faraha badan leh iyo hanjabaadahan iyo waxan ay ka baxaan ay ganacsigoodii iyo walaalnimadoodii iyo ay isu gudbaan ayaan ku hadlaynaa inta wax qasaysa ee mas'uuliyiinta labada dhinacba waxaan leenahay adeerayaalow xaaladda idinku dagaalamaysan dadka masaakiinta xaaladda loo deji taasina waa taa waay waxaan eegi doonaa booqashadii farmaajo halkaasnu ka hadhana muuse bixi laftiisa ayaa booqasho ku tegay dhowaan Djibouti Djibouti markuu tegay maxaad Djibouti ka haysaa Yaasiin Djibouti de waa isku soo wareysteen bal madaxweynaha wasoo wareysteen barnaamijka hore aan ku soo qaadanay arrinka u weyn uu tagay horta ahayd inuu u mahad celiyo marwada kawaad Djibouti khadrahayd oo qayb weyn ka qaadatay xilligii ololaha dhinaca kharashka iyo maaliyadda oo muuse taageersanay in ay Saciid oo intooda waa isku family oo isku xaafad oo isaguna ganacsade weyna oo doonayay in uu halkii dahabshiil isaguna galo oo internetka badda hoosta mara iyo la siiyo iyo qandaraasyo fara badan arrinkan uu ku guuleystay marka jeegaantii oo isu mahad celinaysa ayaa booqashadaas ay ku saabsan waayahay arrimaha ka muuqday dadku hadal hayeen baan eegna waxa ka muuqday labada madaxweyne markay wada fadhiyeen labada caalan ka dambeeyaba waa calamadii Djibouti labada caalan ka dambeeya taasoo waliye marka madaxweynaha Soomaaliland caalan metelay qarankiisa oo ka dambeeya ma jirto ka dad badan baa halka fox ka saaray oo maxaa dhacay laakiin simple waxa weeye wayna ogaatidun
maadaama aan la ictiraafsanayn somalilan lama odhan karayo calankeeda laba dowladood ama laba qaran oo wada fadhiisa haddii abudabi uu tago sidaasoo kale bay noqonaysa ilaa inta ictiraaf laga helayo marka halkaa calankaa gadaasha la dhigo iyo ictiraafku way isku xidhan yihiin waa intaa ma aha jabuuti baa diidan somalilan maaha waayo taas waa taa muuse bixi baa hadlay isagoo u mahad celinaya madaxda somalilan dato ismaaciil cumar geelle oo ah madaxweynaha jabuuti uu saaxiibkiisa ayuu magaciisa garan waayey marmar waxaa jirta qof aad saaxiib lahyatiin oo magacuu ku gooyo magaciiba u gooyey bal muuse oo ka bilaabaya generaal wuxuu ku leeyahay madaxweynaha wadankan jabuuti ee haatan idinla jooga magacii baa u gooyey iyo generaal sakariye iyo magacaankaas oo malaha dee ninka ciidamadii haysta kaa magaciisa u keenay laakiin ninkan kale wuu garan waayey warada aynu dhegaysano dadka jabuuti madaxweynahooda maanta jooga generaal sakariye inay taageerada ugu badan ee nabadgelyo iyo nololba ahayd isagoo ay u geysteen slm iyagiyo shacabka jabuutiga waa taariikh aan dafiinka madaxweynuhu magaciisa ku gooyey shirna aad joogtay waa rin foolxun sama marka malaa calanka haddii la daba dhigi waayo ku xanaaqay oo magaciisi buu u gooyey hadda weliba isagu itaalka waa jabuutiyaan arrinka ugu muhiimsan ee kale waxa weeye wuxuu sheegay in ismaaciil cumar geelle uu slm ka tirsanaa ka soo gallay haddaan slm ahayn oo guri jirin oo raashin jirin oo biyo jirin oo cusbitaal jirin oo meel askari station police jirin oo meel tuuga lagu xidhaya kooxdilaa aanay jirin waftigii ugu horreeyey dal aanu tagnay jabuuti bay ahayd aniga iyo diqsi iyo ismaa ninka la yidhaahdaa cumar boole xangulle duqsi baanu hogaaminayey allahu naxariistay xaaji xasan gureg baanu ugu tagnay wuxuu u ogolaaday markiiba maxaa idinku daran buu yidhi biyo la cabbaanu yidhi teenkii geelgeelle mashiinadii la geeyey halkaanu ka qaaday dowladdii soomaaliyeed dagaalkii slm ee la gashay qaybta ugu weyn ayuu ee dhaqaalaha marka ismaaciil wuxuu ahaa dadkii burburinayey soomaaliya marka loo eego hadalka muuse bixi marka dad badan baa imika ogaaday in ismaaciil cumar geelle uu kharash badan ku bixiyey inuu soomaaliya ay burburto arrinkaasna odagu wuu ka dhawaajiyey waa fahansama taasina waa tahay waaye waa hagaag waxaa jirta sheekooyinka boorame in tagi doona boorame oo adigii tegay oo dhowr jeer meelo badan marmaray waa hagaag laba wariye ayaa ku xidhan magaalada boorame wariye waxaa la yidhaha axmed diiriye ciiltire s b c t v ayuu u shaqeeyaa wariyaha kale waxaa la yidhahdaa cabdilaahi xuseen dabshid calson t v ayuu u shaqeeyaa labadoodaba maxkamaddu waxay ku xukunteen 2 sano oo xadhiga taasaa wareere war maxaa tiri 2 years baa bal dibkaa keen waxaa lagu eedeeyey in ay qoreen in awdal gobolka la yidhaahdo lagu tababaro ciidamo oromo ah oo etoobiya la dagaalamaya waa kays aad ballaaran marka labadaa wiil war beena oo etoobiya liid ku ah ayaa lagu haystaa dabeetana maxkamaddu iyadoo raali gelinaysa etoobiya ayaa 2 sano ku xukuntay waaye waxaan markaa daba galay waxa wiilashu ay etoobiya iyo oromadan iyo waxaan sheegeen waaye maxkamaddii waxay tidhi wiilashu labada wareeye waxaan ku xukunnay 2 sannadood kadib markii ay keeni waayeen qoraaladoodii caddaymo muujinaya in dembigaa ay galeen marka maxkamadda waxaa ka khaldan exactly wiilashu ma iyagaa keenaya dembigii loo haystay mise idinka ciddii ku soo eedaysay ayaa keenaysa eeg bal maxkamadda u eeg marka cadaalad daradani xagay ka timid labada waxay ka hadleen
duqa magaalada boorame maxamed xuseen maydhan ninka la yidhaha oo reer boorama oo marka horena golaha deegaanka ka yimi ayaa baabuurkii dawladda ayuu bledkii ka bedelay taargadii meel nambarkii gaariga mid private ayuu ku dhijiyey si aan dawladdu u odhan gaariga dawladda ale ama da uu xalaalaysto marka wiilashii waa gaariga soo sawiray sawirka waan keeni doonaa qaar ka mid a ayaa soo sawiray oo soo bandhigay oo ka hadloo yidhi gaarigan xukuumadda iska leh marba bileed baa lagu xidhaa arrinta aad buu u xumaaday ninkaas waxa kale oo ka xumaaday horta baabuurka aynu eegno sawirkiisa qaad oo laga helayo gaari si sharci darro ah uu iibsaday maayirka degmada boorama mudane maxamed xuseen maydhane xogahaasi oo daha ka faydaya marxaladihii uu maray baabuurkaasi suuqa madow lagu kala xaraashtay wakhtigan kala guurka ah waxaanay shabakadu helaysaa sawirro muujinaya taarikooyinka kala duwan ee baabuurkaasi lagu dhejiyey daawadayaal sawirka koowaad ee idiin muuqda ayaa muujinaya in baabuurkani uu gacanta maayirka soo galay isagoo leh lambarka shacabka ee uu barasaabkii hore gobolka awdal mustafa shiina ku soo iibiyey isla markaana nasiib darradu waxay noqotay in nambarkaasi aan loo daynin baabuurkaasi balse laga tuuray maalmo kadib markii uu gacanta u galay dawladda hoose ee boorama sidoo kale sawirka labaad ayaa muujinaya baabuurkani ay maayir maydhanaha ku sifoobay musuq maasuqu uu iibsaday oo lagu diiwaangeliyey taarikada baabuurka qalfoofkiisu dhex yaallo dawladda hoose ee magaalada boorama oo nambarka dawladda leh xaqiiqooyinka ayaa muujinaya inaan indhaha la yska qaban karin musuq maasuqan jira ee salka ku haya labada baabuur ee taarikadooda loo kala furay lana damacsan yahay in mid ka mid ah la lunsado iyadoo oo ay badan tahay in la lunsado baabuurka وكاسمال مربى تارجو تاس واتا مستر ميراني وكل هذا وحناقي waxay video ka soo duubeen sariibada ama kawaanka xoolaha lagu qalo ee boorme oo runtii nadaafadiisu ay aad u hooseyso zero ka hooseysa marka qiimeeyo waana lagu dhimanaya waxaana laga qaadayaa runtii anu video-ga aan daawan kari waay dadkana uu soo bandhigi doonaa eedii magaalada oo dhan iyo shimbirtan xuurta la yiraahdo oo aan iyagu istaabaneynba ayaa uuska iyo uurku jirta iyo dhiigga iyo waxa ay faqanayaan aadyaabisa marka banaankii ayaa eedii soo dhaaftay gudihii saribada ayay sanbabkii iyo cuntadii iyo lafihii ay ku cunayaan marka dadkii iyo waxa isku dhex jira eedii okay dhiigii ayaa tuubooyinka meelihii banaanaa ee uu ordayay ayaa isna istaag ku noqday meesha ma soconayo dhiigii marka xinjirihii iyo wixii dhan fadhiistay meesha uma qalanto in hilbaha lagu cunayo boorme taagantihiin baa la yidhi meesha xumaanta ay leedahay iyo daayaca ka muuqda aad iyo aad baan uga qiiroonnay oo yidhaaheen halkani waxa ku shirkada ayda iyo maxay hayday xuurta war maxay tahay waxaan adaankana way quraacanayaan bay noogu jawaabeen lamana gali in halka laga keeno caafimaadka meeshaas oo kale ridaha in loo xidho weeye ilaa inta laga nadiifinayo dawladda hoose iyo duqa magaalada ayaa hawshaasi u taallaa ceebta u weyn cidda ku imanayso waa mister maydhane marka maydhane halkii uu nadaafadda kharash ku bixin lahaa dhismaha quruxiisa odayaabisa xagga sare laakiin markaad dhex geshid waa dhimasho cuntada halkaa laga soo qaadanaya anuu dee si loo cuni ma garanay marka maydhane wuxuu ka xumaaday ciyaalka kawaankii soo bandhigay in ay arrimihiisii soo galeen marka kuwan wuxuu is yidhi waxaad u samaysaa case ay aakhiro u dir wuxuu la kaashaday
gudoomiyaha gobolka nin la yidhaa oo cabdilaahi jibriil gaaxnuug baa la yidhaha mister gaaxnuug iyo isagu kharash ayaa kaga baxay mashruucaas maydhana wuxuu ka baqayaa in booska laga qaado sababtoo ah saylac ninka isla barasaabka ah iyo isagu waa isku xaafad marka reerka intii kale ayaa wuxuu leeyihiin mar kasta isagu wuxuu ka baqayaa in la yidhaahdo dee nin reerkiinu laba iskuma heshaan inaad xaggaana barasaabka noqotaan zaylac xaggana ka soo baxdaan oo reerihii kale oo dhan aad la ignoor gareeyo arrinkaasna wuxuu ku hayaa maydhane wuruur aad u ballaaran waad fahanteen soo ma marka dee maydhana hadduu la iman lahaa waxqabad iyo wanaag halkan baynu ka soo jeedin lahaa xataa saribadda imika hadduu wax ka qabto isla toddobaadka dambe ayaanu sheegaynaa in nadaafaddii uu hagaajiyey uu wax wanaagsan keenay isaga uma soconno laakiin waxaa jira ayun baynu ka hadlaynaa labadii ina markaa wuxuu garhka u geliyey isaga iyo jibriil oo ah guddoomiyaha ayaa isla kaashaday iyo ninka maxkamadda haysta dabeetana lacag baa lagu bixiyey laaluusha in la xidho 2 sannadood ayaa ciyaalka yar loo diray taas waxay muujinaysaa in la caburinayo saxaafadda dhabta ah ee xaqiiqda dadka usoo bandhigaysa ee wax saxaysa ee wax la hagaajiyo ayaa mas'uuliyiinta iyo madaxdu meel kasta wax joogaan ay dagaal ku hayaan waxaan u rajaynaynaa in dowladda Soomaaliland ay soo dhex gasho oo labadaa wiil aan la sii daayo labadaa wiil waxa weeye cabdilaahi xuseen dabshid lagu naaniso ama magaciisa saddexaad dabshid yahay iyo wariyaha kale axmed jeeriye ciiltira la yidhaahdo marka iyagana waxaan u rajaynaynaa in xadhiggaa loo fudeeyo waayahay waynu ka gudbi doonaa dalkii soomaaliya guud ahaan waa la daldalanayaa khayraadkiisii oo dhan ayaa yaasiin wuxuu isugu soo ururay dubay دبي maxay Soomaaliya u daba joogtaa waxay doonaysaa Dubai Soomaaliya in ay xaalufso gibigeedba marka Dubai waxa la geeyay dhurwaayadii dawooyinkii aan hadii la ku shimbrihi waa la qaaday shirkadaha yimi waxa kamid ah shirkadaha yimi ee shimbraha weersanay qaw meesha la yiraahdo oo basaaso 20 kilometer u jirta shirkad baa la keenay iyadoo dadkii deegaanka la yiri ka guura shirkadu waxay qabanaysaa la ogeyn kalluunkii ayaa la dhameeyay imuu waxaan ku sii doonaa markab caalamka lama arag kalluun intaa la eg oo mar qura la qaban karayo dadkii gurayay ayuu ka dul maraya waa shirkad u shaqaynaysa Dubai niman Hindiya baa loo soo dhiibay Soomaaliya ayaa ay ka dhameeyeen oo xaalfiyeen balorta aan ku tuso kalluunka Soomaaliya sida loo daldalanayo oo Dubai u daldalanayso السلام عليكم شركتنا وشركة اللي هذا رأس الخيمة International Fishing Company إمارات كلية هاي ككلميسة تبضها الصومالية وهاي ككلميسة بوتلان بدعس إيو بدع إنديان أوشين ك يعني وإلا وهاي كحافون ك إلا كسمايو إلا سنة بيسو قاعد السومال لامبري والشركة هذا ركتان سيو حرفسي وهندي بقى وشقي سو شغاله هذا waxa weeye wad arkaysan kalluun kuma harin xabad kalluun dalkii kuma harin Soomaaliya iyo Somaliland iyo Puntland intaba u dhamaatay wad arkaysan si loo xalfiyay ilaa shacbiga dhagax la qaaday xataa wad arkaysan وكلونكي وقبلات بري أوردن إنديان أوشنك أيا صار قليا سومالنا وسكم قطع هذا أنا جبش شيء دي أنا جتشيل بكيجي أنا جريه بلا إذن كوريه بلا بلي هي سجنا هلكا أيه كوي جدنا وعن إيه جدنا أن هدي هاي كوري هاي